Raiisulwasaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xusein rooble ayaa mashaariic ku bixisay dhaqaale fara badan la saxiixday midowga yurub kaasoo loogu talagalay horumarinta kaabiyaasha dhaqaalaha Soomaaliya. Raiisul wasaaraha Soomaaliya mudane maxamed xusein rooble ayaa sheegay in mashaariicdani ay tahay mid muhiim ah isla markaana loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka isla markaana sanadkan ay si gaar ah diiradda ay u saari doonaan horumarka Soomaaliya. Sidoo kale raiisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay horumarinta kaabiyaasha dhaqaalaha dalkeena Soomaaliya waxaana aan goobjoog u noqonay ayuu yiri saxiixa bilowga wejiga labaad ee barnaamijka lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka kaasoo ay ku bixiso lacag cadadeedu gaaraysa 98.2 milyan oo euro. waxaana heshiiskaasi saxiixay wasiirka wasaaradda qorsheynta jamaal maxamed xasan iyo safiirka midowga yurub u fadhiya Soomaaliya mudane Nigel Barlenja ayuu yiri raiisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed xusein rooble. Raiisul wasaaraha ayaa sidoo kale intaasi hadalkiisa ku daray waxaan u rajeynaynaa in barnaamijkan